يا رمضان سلام مرحب، شعب المسلمين رحب، منتظرين بنترهب، زادنا صيامنا ما بنلعب. مرحب بك في كل دار فرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولا إله سبحانه وتعالى. ما هذا سكله كسر دوادة برنامج كنا وأينو مقعدرني كجفا إيديس بشهر رمضان وأينو كنت المام الدونه أعمال مضن إنه بشهر رمضان لني ماضنه إلهينا سبحانه وتعالى ودوانه بشهر رمضان أينو كجفا إيديسنه وحن مات موضوع إنه إشارة ضنا أو إنه صوت المام ضنا أقرنت إياك تدبرك هذا الكإلهي سبحانه وتعالى كتابك إلهي أقرنتيسا iyo inaynu ku tadaburno bisha Ramadaan gudaheeda sidan wada ogsoonahay walaalayaal Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabka wuxuu soo dejiyay Qur'aanka ah bisha Ramadaan aynu ku jirno gudaheeda ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu soo dejiyay waxa uu Allah u leeyahay shahru Ramadaan alladhi unzila fihi alquran bishan wa bishi Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu Qur'aanka uu soo dejiyay وحاو الله إليه إنا أنزلناه في ليلة مباركة وحان القرآن كسودة جني هبين بركيسا بان سودة جني صدق الله إليه إنا أنزلناه في ليلة القدر وحان سودة جني هبين كاللو يقانو ليلة القدر اللو يقانو ولا ليال أقرنت قرآنكو وحليه فلي آدي مهيمة وأولا أكسن أيو ليه أقرنت قرآنكو هذا ندور حادث أين كتل معمنو oo inagu dhiirigelisa inaynu bisha Ramadaan Quraanka akhrintiisa la nimaadno oo aynu ku dadaalno waxa kamid ah xadiiska nabiga kaleeyhi salaatu wassalaam ee iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi war Qur'aanka akhriya wuu leeyahay nabiga kaleeyhi salaatu wassalaam waayo maxaa yeelay Qur'aanku maalinka qiyaamaha wuxuu imaanayaa isagoo u shafeeca qaadaya ahlkii akhriyi jiray ee saaxiibka la ahaa ay u shafeeca qaadaya maalinka qiyaamaha sidoo kale nabigu kaleeyhi salaatu wassalaam wuxuu tilmaamay xadiiska Anas ibn Malik uu soo warinayo in Ilaahi subhanahu wa ta'ala uu ahli leeyahay ahlka ilaahayna ay yihiin ahlul qur'aan hum ahlullahi wa khassatu dadka quraanka u saaxiibka ee quraanka akhriya inay yihiin ahlullahi wa khassatu dadka ilaahay oo khaaska ilaahay subhanahu wa ta'ala uu lahaa walaalayaal hadaynu fiiro nabigeenu kaleeyhi salaatu wassalaam bisha Ramadaan cinaayo intee leeg ay uu quraanka siin jiray sanad kasta oo bisha Ramadaan ay soo gasho nabigu kaleeyhi salaatu wassalaam malakul jibriil ayuu quraanka la diraasayn jiray la muraajacayn jiray walu fiirso wa sayyidul malaa'ikta sayyidkoodii oo malakul jibriil iyo sayyidul bashar oo nabi maxamed kaleeyhi salaatu wassalaam ayaa intay isu yimaadaan ay quraanka wada muraajacaynayeen oo wada diraasaynayeen quraanka wa malagi yani quraanka yani soo dejinay waxyiga soo dejinay iyo nabigii lagu soo dejinay waxyiga quraanka lagu soo dejinay ayaa labadaas inta isu yimaadaan ay quraanka wada muraajacaynayaan oo quraanka ay akhrinayaan walu fiirsa walaalayaal waxay noo tilmaamaysaa yani muhiimadda ay leedahay inaynu bishan Ramadaan aynu ku dadaalno akhrinta quraanka aynu akhrinayno aynu la nimaadno yani jadwal aynu ku akhrinayno quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan rabaa walaalayaal inaan ku soo gabagabeeyo xadiiska nabiga kaleeyhi salaatu wassalaam ee uu ku tilmaamay fadliga ay leedahay suuratul ikhlas waa suurad kamid kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wa qul huwa Allahu ahad wuxuu nabigu kaleeyhi salaatu wassalaam ta'dulu thuluthul qur'an waxay u dhigmataa quraanka marka saddex meel loo qaybiyo meel ayay u dhigmataa habeenada kamid soo saxaabadiisa la fadhiya ayuu ku yiri war midkiin miyuu ka caajisaya quraanka inuu habeenkii saddex meelood uu meel akhriyo markaas ay saxaabadu aamusan oo yaabeen wuxuu nabigu kaleeyhi salaatu wassalaam qul huwa Allahu ahad تعدل ثلث القرآن وحيقول والله واحد ودقمتا قرآن كسدح ميلاد ميل أي ودقمتا بمعنى قف كسدح جر قل والله أخريا وحلم لي هاي قف قرآن كأودن ختمي أو أخري أي لمديه انت يعني بشن قده هذا قل والله أخري كرتا انت بعد مالك يقول والله أخري كرتا أو قرآن كأتصو ختمي كرتا وأدم مين كرتا وحن كوجود يا ولا ليال حرف كستو كم كتاب كإلهي ولا آخر ساي وحد كوه ليسا طبعا حسن طبعا يعني حسنات كويسة طبعا حسنات ايات كويسة وحي النبي عليه الصلاة والسلام حرف كستو كتابك إلهي كمذا حسنة ايا الوهلية حسنة صور دقمتا بعشر أمثالها طبعا لا يبكيدو دقمتا ايات كويسة بالنبي عليه الصلاة والسلام وحان نفطينا لأن فيه إن شاء الله تعالى أن كل رجالنا إنaynu ku dadaalno quraanka akhrintiisa bisha Ramadaan
nafaheennana aynu ku tarbiyadayno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.